madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay Saciid Cabdullaahi Dani iyo madax kale oo Puntland ka tirsan ayaa si diiran garoonka diyaaradaha ugu soo dhaweeyay madax kale gedisan iyo siyaasiyiin heer federaal iyo isugu jira heer maamul goboleed oo soo gaaray maanta magaalada Garowe si ay uga qayb galaan xafladda caleemasaarka oo maalinta berri ah ka dhacaysa magaaladan Garowe. waxaa yimid madaxweynihii hore dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu horkacayo oo isugu jira senataro iyo xildhibaano golaha shacabka ka tirsan iyo sidoo kale xubno xisbigiisa UPD ka tirsan. sidoo kale waxaa soo gaaray wasiiro xildhibaano iyo senataro iyaguna la socday gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaa kale soo gaaray magaalada Garowe wufuud ay ka mid yihiin siyaasiyiin kuwa maamul goboleedyada xildhibaano iyo wasiiro waxayna dhammaantood u diyaarsan yihiin in ay ka qayb galaan xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha. qaarkood oo goobjoog la hadlay waxa ay ka hadleen dareenkooda iyo sida uu yahay in ay ka qayb galaan xafladdan. waxaanu ka qayb galaynaa caleemasaarka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. aad ayaan ugu faraxsanahay inaanu Garowe nimid inaanu dadka reer Puntland kala qayb galayno farxadooda. dareenkaygu aad buu u fiican yahay runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo caleemasaarka madaxweynaha dawladda Puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka. aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan ka mid ahaa raggii haddeer yimi berrito caleemasaar ah oo maalin farxadeed ah oo ma garanaysaa Puntland isbeddel hore u dhici jiray uu haddana ka dhacay. aad baan ugu faraxsanahay waa maatantahay. marka runtii lagama sheekayn karo waa farxad aad u wanaagsan. waa arkaysaa jawiga iyo quruxda iyo soo dhoweynta wanaagsan ee nala soo dhoweeyey. waxaa garoonka nooga hor yimid wafdigii uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cawad iyo xildhibaano iyo wasiiraan ahayn si sharaf ku jirto madaxweynaha ayaa nooga hor yimid. waana ka filaynay waana aqoontii iyo intii aan u lahaa weeye. waxaan rajo weyn ka qabaa in Soomaaliya wax weyn siyaasadeedu uu ku soo kordhin doono Saciid Dani oo runtii rugcada ah. wafdigeenu maanta wuxuu ka soo kicitamay magaalada Muqdisho 11 barkii saakay. haddana waa labadii oo aan soo gaarnay magaaladan aadka u weyn caasimadda Puntland ee Garowe. wafdigu wuxuu ka koobnaa madaxweynihii hore gudoomiyaha xisbiga UPD baa hogaaminayay 30 xubnood buu ahaa oo isugu jiray senataro iyo xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo xubno kale oo ka tirsan howlwadeennada xisbiga iyo wafdi kale dad kalena way nala socdeen. marka waxaan ujeedkaan u nimidna wuxuu ahaa inaan ka qayb galno caleemasaarka munaasabadda weyn ee caleemasaarka ee berrito ka dhacaysa caasimadda Puntland ee Garowe. madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa lagu caleemasaarayo munaasabadaas oo aan u aragno inay tahay munaasabad dadka Soomaaliyeed farxad gelisay sidii doorashadu u dhacday iyo madaxweynaha dadka ay doorteen Puntland inaan farxaddaas kala qayb galno annaguna inaan raalli ka nahay aan ka muujino Puntland Soomaaliya ay ka mid tahay in la muujiyo Soomaalinimo. waxaan ku tilmaamay inay Garowe noqotay maalmahan qibladii siyaasadda Soomaaliya oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay u soo tukanayaan dhankeeda oo siyaasiyiinto dhan adduun iyo Soomaaliya gudaheedaba la wada imaanayo aan loo kala maqnayn. reer Garowena gobnimo muujiyeen waa maasantiin. waxaa maalmihii la soo dhaafay ku soo qulqulayay oo hore ugu sugnaa iyaguna sidoo kale wufuud kale oo kuwan ka horeysay si ay uga qayb galaan xafladdan caleemasaarka madaxweynaha maamulka cusub ee dhawaan la doortay Saciid Cabdullaahi Dani. xafladdan oo magaalada Garowe qabanqaabadeeda iyo diyaar garowgeedaba si weyn looga dareemayo. Aways Xaaji Nuur Aways goobjoog Garowe.